maanta waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed taariikhi u ah waxayna ku suurto gashay isu tanaasul isxog warsasho isla qirid xaaladda aan ku sugannahay isxushmeyn waxaana runtii mahad gaara iskale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii dhirif badan oo nagu jiray iyo xanaaq badan oo nagu jiray naga dejiyay taladu meesha ay caawa joogtana keenay sida aad ku maqasheen warmurtiyeedka waxaan dhaafi weynay in ummadda Soomaaliyeed danteedu ku jirto inay doorasho dhacdo waqtigii la xadeeyay halkaasaan ka soo bilaabaynaa tilaabaha halkaasaan ka soo bilaabaynaa waxaa kaliya noo dhiman inaan intaan aqligeenna iyo niyadeenna isu geyno aan dhahno war waqtiga noo haray maxaan qaban karnaa waxaan qabaa inay saldhig u tahay in la isla qiro waaqica ama dhabta ama reality-ga waddanku ku sugan yahay taa haddii la isla beel dhigo waxa kaloo dhan waa sahlanaanaya laakiin haddii waaqica aan la isla meel dhigin waxaan maqli jiray sideetameydii dadka xoogaa madaxa ku xanuunsan yihiin marka isbitaal dhihi jiray laasareti la keeno si loo ogaado inuu fayoow yahay iyo inuu wax si ka yihiin fuusto dabada ka go'an ayaa la dhihi jiray biyo ku shub hadduu qofkaasu kala garto fuustadaasu inay biyo aysan qaadayn waxaa leeyahay ninkan xoogaa xanuun kala ahaaya ma ahe waa maskaxdiisu waa okay waxaana la ka rabaa caqligeennoo fayoow fuusto dabada ka dalooshayaanaan biyo ku dhaamin wixii waddankan ka suurto gala oo wakhtigaas ka suurto gala aan samayno laakiin haddaan rabitaankeenna iyo fantasigeenna iyo waxaan jeclaa lahayn iyo wixii naloo sheegay iyo wixii adduunyadu aaminsan tahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ma tabaraa la guuraa mase taako markaasaa dadkii waxgaradkaa waxay dhaheen tabar ha la guuro tabar taakada nafteeda laga yaabaa inaan la guuri karin marka taasu halkaasay ku dhammaatay waxaan rajaynayaa niyad wanaagga halkaan ka dhashay in muxuu ahay oo ka miro dhali doono xildhibaanada runtii waa laga kaftamay oo kaftan badanaa ka dhacay inkastoo xildhibaanada hadda jooga oo magaalada jooga oo aan aragnay amaba hadda inta fadhiya iyo kuwa xamaray ka codaynaan leeyahay marka la isku daro tiradii xoogaa iga qaldantay oo baarlamaankii xoogaa tiradiisii wareer iga gashay laakiin haddana si kastaba ha ahaatee xildhibaanadu waa xildhibaanadeennii keliya waxaa laydinka rabaa ogaada xildhibaankii kursigiisii dhabarka saartay kalsooni darro awgeed ha ku bishaaraysto ma soo noqonayo sababtoo ah iyadoon la codayn buu wuxuu dadkiisa u qiray inuusan ku kalsoonayn kuraastiinna meeshay idiin yaalleen ha idiin yaalaano dadku waa dadkiinnii waddanku waa waddankiinnii niyad fiican oo wanaagsan ku imaada waxba idinka halaabi maayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu